kulan wanaagsan daawadayaal soo dhowaada wararkii ugu waaweynaa xiisadda bariga dhexe ayaan barnaamijkan ku eegi doonaa qodobada barnaamijkan aan kugu soo gudbin doonana waxa ugu horeyn doona madaxweyne Donald Trump oo dharbaaxa culus ay ku dhacday kadib markii Sacuudiga uu gaashaanka u daruuray in saldhigyadiisa laga duqeeyo dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran maxay tahay fariinta tallaabadaasi ay dirayso Sacuudiga uu isagu qaaday barnaamijka ayaan kugu hayaa wararkii ugu dambeeyay Tehran iyo waliba qorshihii ku aadanaa inay qaadato go'aan ku saabsan proposalkii loo soo bandhigay xabad joojinta iyo heshiiska la xiriiray waan ku hayaa xogo ku saabsan saacadihii ugu dambeeyay Washington iyo waliba tallaabooyinka ay qaadayso sidoo kale Iiraaniyiintu iyo jawaabtoodu iyo waliba sida u noqdeen dhinaca kaliya ee laga wardhowrayo qodobadan iyo kuwa kale xiiso badan ayaa barnaamijka yaga aan kugu soo gudbin doonaa soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan daawadayaal channelka subscribe saaro sii share gare saaxiibadiina la wadaaga muuqaalka like ku dhiirigeliya aanu ku bilownay si aad la socoteen ilwareed dalkaasi Lubnaan ayaa waxa uu isagu si toos ah u sheegay inuu jiro wada hadal toos ah oo la filayo inuu dhex maro Israa'iil iyo waliba dowladda Lubnaan sarkaal ka tirsan madaxtooyada oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu si hoose sidoo kale warbixin u siiyay telefishinka Al Jazeera waxaana la sheegay in dhowr TV xogo u qaybiyay markaa sarkaalkan oo aan la carabaabin ilwareedku wuxuu sheegayaa inuu jiro wada hadallo la doonayo in lagu xagaldaaciyo wada hadallada Mareykanka iyo waliba Iiraan ay galayaan Israa'iil ayaa madaxweynaha Lubnaan uga faa'iideysanaysa waqti xaadirkan fursad dahabiya kadib markii uu isagu aqbalay heshiis inuu la qaato kaas oo isagu la tilmaamayo inuusan lahayn awood uu isagu heshiis ku qaato ama mid uu isagu ku diido maxaa yeelay waxa leeyahay waa nin raba inuu bixiyo wax uusan lahayn maxaa yeelay deegaanada lagu dagaalamayo gacantiisa kuma jirto gacanta ciidamada waba ka soo carareen dagaalyahanada Hezbollah ayaa jooga tani waxay keentay su'aalo badan iyo waliba qaabka suurtagalka ee xiisadda loo dejin karo geesta kale xaaladihii ugu dambeeyay ee dalkaasi Iran faahfaahinno badan ayaa laga helayaa dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran iyo waliba tallaabooyinka ay qaadayso Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran maanta bayaan bay soo saartay waliba waxaa hadlay mid ka mid ah saraakiishooda aadka looga dambeeyo xogayaha guddiga amniga qaranka ee baarlamaanka dalkaasi Iran Bahnaam Saciidi waxa uu sheegay xuquuqda kobcinta uraniumta in ay tahay mid aan sahlanayn waqti xaadirkan wuxuu yiri in dhammaan cunaqabataynta la qaado lana sii daayo lacagtii Iran laga xayiray ayaa ka horeysa in la joojiyo uraniumta si adag ayuu u beeniyay hadal uu sheegay Donald Trump kaasoo ahaa in 400 kilogram laga saaray gudaha dalkaasi Iran ama laga saari doono wuxuuna sheegay been siyaasadeed iyo waliba been abuur la soo dhoodhoobay inay ahayd tallaabadaasi oo la doonayay in la isaga horkeeno hoggaanka dalkaasi Iran iyo waliba shacabkoodu xogtu waxay tilmaamaysaa dowladda waddankaasi Iran in hadafka ugu weyn ee iyadu u sameynayso waxaan ay tahay sidii ay u heli lahayd xuquuq iyo waliba cad muuqda oo ay rabaan inay ku dagaalamaan mustaqbalka markaasi haddii kale heshiis aan cadayn iyo waliba awood cad oo iyagu markaasi ay helayaan haddii la waayo qatar weyn ay la kulmi karaan mustaqbalka weyna dhibaatoon doonaa markaa mana doonayaan dhibtu mar kale inay ku soo noqoto waxay doonayaan waqti xaadirkan mushkiladda ay ku jiraan inay ka sii faa'iideystaan si iyagu ay ugu bedelaan natiijo wanaagsan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la kulmay dharbaaxa culus sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan maqaal dheer oo isagu daawacay NBC News ayaa waxa uu sheegay inuu jiray dowladda waddankaasi Iran hal arrin oo markaas iyagu ay u qaateen inay sii dagaalamaan waxaan ay ogaayeenayaan leeyri dowlado badan oo ku soo jira waqti xaadirkan waxa ay sameynayso Saudi Arabia maqaalkan oo isagu dheeraa ayaa waxa qoray Daniel Arkin NBC News ayaana lagu daabacay
madaxweynaha Donald Trump ayaa la tilmaamayaa in uu isagu la kulmay war markaa wejigabax oo kala ah maadaama la hakinayo waqti xaadirkan Saudi Arabia tallaabo markii hore ay ku ogolaatay in lagu isticmaalo saldhigyadeeda sida channelkan uu isagu tilmaamayo Sacuudigu aad buu uga carooday kadib markii Trump baraha bulshada isagu kaga dhawaaqay howlgalka markaasi loo bixiyay Project of Freedom laakiin su'aasha la isweydiinaya waxay tahay Sacuudigu la tashi weligoodba lama siin jirin oo waa la amri jiray markaa Trump wuxuu dhihi jiray sida kelmado aad u liitay uu kula hadli jiray marka NBC News sida ku leedahay Sacuudiga wuxuu rabay in lagala tashado arrintan dowladda Saudi Arabia waxay sheegtay inaysan u ogolaan doonin diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ingibi ahaanba aysan ka duulaan tagin saldhigga lagu magacaabo Amir Sultan Airbase kaas oo markaasi ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee dalkaasi Iran waa dalka Saudi Arabia afwan Trump iyo waliba dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa la yiri laakiin khilaaf xoog leh ayaa soo baxay tani waxay qasabtay Trump in si ku meel gaar u hakiyo Project of Freedom si dib loo helo ogolaansho isticmaalka hawada iyo waliba saldhigyada dalka Saudi Arabia xulufada kale ee khaliijka sida Qatar ayaa iyaguna si lama filaan ay ku noqotay qorshaha iyaga oo Trump la hadlay hogaamiyaashoodana si cad ugu sheegay inay tahay arrintu in lagu xalliyo miiska wada hadalka laakiin waxaa jira wadamo badan oo iyagu aan ku qanacsanayn sida waxay u socdaan waqti xaadirkan haddii aanu eegno sheekada ku saabsan waxa jirta Mas'ud Pezeshkian madaxweynaha dalkaasi Iran ayaa maanta kulan la qaatay hogaamiyaha dalkaasi Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei waxa uu sheegay xigmadiisa iyo waliba ninkan siduusan isula weynayn sida uu wax u hogaaminayo intuba inuu la dhacsan yahay kulankan ayaa waxa uu yimid waqti xaaladda mandiqada bariga dhexe ay tahay mid xasaasi ah labada dhinac ayaa ka wada hadlay sidii dalka loogu sii hogaamin lahaa marxaladda adag meel ammaan ah isla markaana la geyn lahaa meel ka fog xiisadda iyo waliba dagaalada haddaba waxa uu sheegay Mas'ud Pezeshkian inuu la kulmay ninka Mujtaba Khamenei oo hogaamiyaha dalkaasi Iran isagoo sheegay hogaamiye ruuxda uu leeyahay hogaankiisa siduusan isula weynayn ixtiraamkiisa iyo jacaylka intuu waxa dareemaysaa buu yiri sida ay ku muujinayso hogaamiye isagoo kale inay heshay jamhuuriyadda islaamiga ee dalkaasi Iran inay tahay wax weyn haddaba fariintan waxay dareysaa ayaa leeyahay hogaamiyahan inuu wali nool yahay inuusan wax cilada qabin in qatar kale waqti xaadirkan isagu uu ka baqaynin oo uu si dagaalami karo xogtu faahfaahin dhowr ah ay markaa bixinaysaa oo ah hogaamiyahan inuu isagu waqti kale u diyaar u yahay in uu si dagaalamo geesta kale dowladda wadankaasi Iran haddii hal iyo laba aan ka niraahno Iran waa hadashay waxay tiri annagu mowqif kama dambaysa kamaba gaarinba proposalkii uu soo bandhigay Mareykanka ciidan way ku dheelayaan Donald Trump marna waxay leeyihiin heshiis marna dagaal marna buuq marba waxbay u sheegayaan marka wuxuu leeyahay ilaa hadda mowqif dhammaystiran ama aakhira marna kamaalana kulmin buu yiri waliba marka adeegtid wuxuu tilmaamayaa afayeenka u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran inay eegi doonaan go'aanka ay qaataan ama qodobada ay eegaan inay sax yihiin ay u gudbin doonaan dowladda Pakistan jawaabtu waxay noqotay dowladda Mareykanka iyaguna cunaqabatay inay ku soo rogeen Iran wasaaradda maaliyadda ee dalkaasi Mareykanka ayaa waxay sheegtay ciqaab cusub garka in loo geliyay dalkaasi Iran waxaana la xiriirtaa arrinta ku saabsan naftada iyo waliba mas'uuliyiin xitaa kamid ah kuwa Ciraaq oo iyaguna ciqaab garka loo geliyay markaa goordaweydna waxaa soo baxay war degdeg ah wakaaladda wararka ee Faris ee dalkaasi Iran ayaa ku waramaysa in dad ku sugan magaalada Bandar Abbas iyagu ay ku warameen ee ku taala koonfurta dalkaasi Iran
inay maqlayeen dhowr qarax oo ka dhacay hareeraha magaalada iyadoo weliba aan la ogeyn qaraxyadaasi waxay ka dhasheen. wakaaladda Mehr ee dalkaas Iiraan ayaa sidoo kale xaqiijisay in qaraxyo laga maqlay Bandar Cabbaas iyo jasiiradda Qishim. wakaaladda Tasniim iyaduna waxay wareysay qaar ka mid ah dhawaqyada qaraxyada inay la xiriireen howlgal badeed oo ay sameeyeen ciidamada Islaamiga ee ilaalada kacanka dalkaas Iiraan sida hadalka u dhigeen si ay uga digaan maraakiibta isku dayeyseen inay maraan marinbiyoodka Hormuz. telefishinka dowladda Iiraan isaguna wuxuu sheegay qarax laga maqlay dekedda Bahmaan oo ku taala jasiiradda Qishim. sidoo kale wakaaladda Mehr ayaa waxay sidoo kale sheegtay in qaraxyo dhowr laga maqlay magaalada Sirk. wakaaladda wararka ee Faris ayaa iyaduna sidoo kale waxay baahisay qaybo ka mid ah dekedda Bahmaan in la weeraray intii uu socday iskoorimaad rasaasayna oo dhex martay ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iiraan iyo weliba kuwo kale. waxaana la aaminsan yahay ama si hordhaca xogtu u tilmaamaysaa inay yihiin ciidamada Mareykanka. Faris waxay intaa ku dartay qaybta ganacsiga dekedda Bahmaan inay soo gaareen burbur ka dhashay duqeynta. dhanka kale telefishinka 12aad ee Israa'iil ayaa waxa uu xigtay saraakiil Israa'iiliyiin iyagoo sheegay Israa'iil wax xiriir inaysan la lahayn waxa Iiraan ka socda. marka su-aashu waxay tahay 10 daqiiqo 20 daqiiqo ayaa ka soo wareegatay waxa dhacay iyo weliba goobta ay ka dhaceen, laakiin su-aasha la isweydiinayo waxay tahay maxaa u sababa in ninkan Netanyahu isagu yiraahdo wax shuqul iyo shaqo kuma lihin. soo dhawaada channelka subscribe saaro si share gare mahadsanid daawade.